saddex maalin iyo laba habeen aan muqdisho joogay markii aan baxay kadib waxaa ahayn waxyaalihii igu cadka badnaa ma aanan islahayn hadda dowladda federaalka soomaaliya iyo laamaheeda amniga way ku arkayaan ama waa lagu qaban doonaa ma aanan ka qabin ma cabsi ama qabin laakiin niman aan dirirnay oon fahmaya inay dadkina saameyn badan ku leeyihiin bee cabsida ugu badneed iyo khatartii ugu badneed oo aan qabay labadiibana rabbi baa iga badbaadiyay tabaaraka watacaala waxaana ii suurta gashay in xilli maalinimo ah soo raacadoon kadibna aan kismaayo ku imaado dabcan dee dadkii igala shaqeeyey oo soomaaliyeedna oo ku aan horay ereygii ooga mid ahaa inaan u mahad celiyey cid walbaba ha ahaato ama dowlad jubbaland ha ahaato ama dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin kamid ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan qof kasta oo ay kamid yihiin hataa qoladii doonta ka ahayd darawliinta oo doontii lagu waday qof kastoo shacab oo soomaaliyeed oo barnaamijkaas igala qayb qaatay mustawa kastaba ha lahaaday waa u mahad celinaya marka qorshaha aad ku soo baxsatay waxaa sidoo kale gacan ka geystay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka xilligan aad ila hadlayso marka halkeed ku sugan tahay waxaan ku suganahay degmada beled xaawo qayb ka mid ah aniga iyo mas-uuliyiin kale oo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland uu kamid yahay waxaana ka hayaa ciidamadii jubbaland ee gobolka geda ku sugnaa oo intii aan muddadii afduubka liya haystay isku bedelay sistamyo kale inaa ciidamadaas dib u habeen ku sameeya haddii rabbi idmo laakiin warar aan helnay waxay sheegayaan inaad ku sugan tahay hotel ku yaalla magaalada mandheera halkaas inay kugu ilaalinayaan ciidamo ka tirsan militariga waddanka kenya meesha aniga aan ku suganahay iyo ciidamada aan la joogay iyo aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo tiimka kaleeto oo aan halkan oogu imid intaba iyada oo maqal iyo muuqaala inay ummadda soomaaliyeed fiirsan doonto arrintaas marka hadii mandheera iyo beled xawas waa laba magaalo daris ah way dhici kartaa inaan usoo gudbo saacado ama daqiiqado aan dan ka leeyahay aan joogo laakiin anigu meesha aan ku sugan oo hadda aan kaala hadlahayo waxaa weeyaan magaalada beled xaawo qayb ka mid ah ma garowsan tahay in magaalada buulaxaawo ee aad sheegtay inaad ku sugan tahay guud ahaan gobolka gadoba ay la wareegeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waa sax hadda magaalada balaxaawo aan ku suganahay waxaana ku sugan laba ciidan waxaa isla jooga marka ciidan oo hadafka dowlad federalismka ka hor imaadsan oo diidan iyo ciidan dowlad goboleedka soomaaliyeed oo jubbaland uu leeyahay oo daraawiish ah oo gaadiidkoodii iyo qalabkoodii haystaa iskula sugan laakiin hadda maanta laba aragti kala duwan leh iyada oo askartu midna uu yahay ciidanka dowladda federaalka soomaaliya midna dowlad goboleed hoos tago way hal dalna wada leeyihiin hal cadowna leeyihiin markuu aqli saliim ah shaqaynaya laakiin hadda aqliga asagaa waxaad moodaa maanta mid ka duwan inuu ka jiro magaalada beled xaawo iyo gaar ahaan gobolka geda degmooyin kamid ah doolow luuq iyo ama gobolka geda o dhan ba aan dhaho dowladda federaalka ee aad ka soo baxsatay ciidamo ka amar qaata ayaa ku sugan magaalada buulaxaawo marka sidee isu keenaysaa inaad si nabad ah ku joogto magaalada walaale ciidanka magaalada jooga ciidan ka tayo wanaagsan kana qalab wanaagsan baa aniga gacanta igu jiro oo iga amar qaadanayo oo dowlad goboleedka jubbaland ay leedahay anigu aan xukumo marka kuwo kale oo haddii aan dareemo in ay ciidan la-aan i haysa aan la iman karo oo goobo kale ku suganna way jiraan oo jubbaland ay leedahay oo aniga iga amar qaadanayo oo sugahayo hadda heegan ku wada jiro marka wax cabsi ah oo aniga aan qabo oo aan isleeyahay waxaa ciidan hadda dowladda federaalka ka amar qaadanaya ku qabanaya ma lahan ujeedkaagu ugu weyn muxuu yahay aniga halkaas waxaan u tagay hortaro kale mas-uuliyiin ana meesha mandheeray sii joogeen qayb ka mid ah walow hadda aan isla wada gudbinay oon joogno soomaaliya oo degmada balaxa oo wada joogno waxaanu ulajeedkaygu uu yahay inaan dib u habeyn ku samayno ciidamadii dowlad goboleedka jubbaland oo la dhibaateeyey oo la kala furfuray muddadii aan xirnaa iyo shacabkii la jaha wareeriyey oo nidaamkii ay ka tirsanaayeen lagu diray intaba degmooyinka keliya ah oo isku furan oo baabuur qof mas-uulaya mid shacab ah oo si nabada ugu raaci kara waxay ahayd degmooyinkan hadda maanta aan ku sugan oo balaxa doolo iyo luuq maantana qafkii ugu xumaa baa ka jiro amni darradii ugu xumaa baa ku jiro taas marka waxaan dhihi karaa waa arrin khatarteeda leh cadowgii shalay lala dirirahayo dalka haystay oo argagixisada ahna in laga soo jeesto ciidamadii soomaaliyeed ama dowlad goboleed magaceeda ha ku socdeen ama dowladda ha ku socdeen dhexdooda la isku laayo midaasna waa mid la weydiin doona ciddii barnaamijkan soo abaabushay waa gartay leeyahay dowladda dhexe soomaaliyeed madaxeeda u sarraysay baa go-aankaas qaaday hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international waxay kugu eedeysay inaad dad rayida ku laysay gobolkaasi islamarkaana ay dalbanayso in lagula xisaabtamo diyaar ma u tahay waa ka xumahay waxaana dareemayaa dhalinyarada barnaamijkaas hay-adda inay magaceeda yahaydu hay-ad international ah inay ilaaliyaan magaceeda aaday u wanaagsanaan lahayd iyo hay-adda shaqadeeda ay ku ekaadaan laakiin niman dhalinyaro ah oo muqdisho jooga oo laba ah oo dabcan inta badan taageero u ah xisbiga hadda xukuumadda hayo barnaamij siyaasadeed bay u bedeleen oo siyaasadeed ay u bedeleen inay ku salaysan tahaan dareemayaa codka ee amnesty ay ka siidayso warbaahinta aad iyo aad baan ooga xumahay waxaana rabaa inay isweydiiyaan ayaka kiiskaas aniga 2015 anoo
isbitaal dalka Thailand shil aan galay ugu jiro ayaa barnaamij siyaasadeedsan oo asalna ku salaysnaa sistamka dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay aragtidoonaan Jubbaland markii la dhisahayay dad siyaasiyiin aan isku qabanay barnaamij siyaasadeed oo ku salaysan baa waxaa laga qoray warqad siyaasadeedsan anu shacabka Soomaaliyeedna ma xasuuqin mana laynin shacabka Soomaaliyeedna waa shacabka aan ku taaganahay dhiiganaga nafteedana aan u horeyna inaan badbaadino mas-uuliyiintana aan u nahay dabcan ciidamo markii shacab ay ku dhex diriraan argaxisan kula dirireen khaladaad way dhici karaan laga yaabo in ay ciidamadaas geystaan laakiin anu shakhsiyan cabdirashiid ahaan waxaan dhib u geystay oo shacab Soomaaliyeed aan ma jirin laakiin cabdirashiid dadkii la sheegay inaad gobolka Gedo ku leysay eheladooda iyo cadaalad dalbanaya oo doonaya inay kugu marqaati kacaan marka ma taas siyaasadda may walaal aniga waxaan dhibaato u geystay oo dad ah oo shacab Soomaaliyeed oo aan dhibaateeyay ma jirto dagaal shabaab iyo ciidanka naga dhexmaray way dhici kartaa xabado la isku dhintay shacab inay ku dhinteen laakiin dad shacab oo Soomaaliyeed oo aniga si gaar ah dhibaato ugu geystay ma jiro dowladda federaalka waatan kugu raajoogta ciidamo ka amar qaatana waxay ku sugan yihiin isla magaaladan aad sheegtay inaad ku sugan tahay marka halkee doonaysaa inaad ku noolaato dowladda Soomaaliya waa sax inay xabsi ugu hayaan oo Jubbaland shacabkeeda iyo nidaamkii ay dadku samaysteen ay burburiyaan inay iraadiyaan oo dagaalamaan waa wax iman karo laakiin waxaan hubaa dagaal inaysan qofna u wanaagsanayn qofkii aniga raadinaya waxaan joogaa dalka Soomaaliya waxaan joogaa Buulaxaawo meel oogama socdo gobolka degmooyinka sikalaan tegi doonaa biidnillaahi tacaala ismaayo xaruntii dowladda gobolka Soomaaliyeed ismaalgaarkeed baan tegi doonaa talada dalkan dhinac kala haanayaa qofkii aniga qabanayo ama shakhsiyan si gaar ah raadsanayana waa soo dhawow waan leeyahay kaalay welcome xukuumadda hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaaminayo inay la soo baxday 3 sano oo ay jirtay inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horreysay inay la dagaalanto nidaamka federaaleynta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ee hareer martay oo ay dagaha ka furaysatay in ay ka garnaqasato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha loo maarayn lahaa sidii dadka mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuma la isugu soo dhoweyn lahaa sidii midnimada loo ilaalin lahaa taa waxa ay ku beddeshay inay hawl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dawladnimadii xasiloonida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxaa ka socda gobolka Gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoreysnaa magaalooyinka Doolow balad xaawo luuq in ciidamo lagu daadguraynayo ciidamo la yiraahdo haramcad waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale ahaan lahayd laakiin haramcad xoolihii iyo dadkii cunaaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa Soomaalida dhexdeeda u abuuraysa nidaam dadka Soomaaliyeed ay ka soo doogayeen oo ah in qod caaradiisa la isku maamulo arrimaha noocaas runtii waxay walaac gelinaysaa Puntland sida hadda wax ku socdaan hadday ku sii socdaan oo qodobka ku saabsan arrimaha waxbarashada runtii Puntland ma rabo inaan maanta halka ka sheego taariikhdeeda waxbarasho iyo meesha ay soo martay laakiin waxaa ugu filan Puntland in dhammaan hay-adaha tacliinta ka shaqeeya ee Soomaaliya ay mar walba oo ay qiimeyn ku sameeyaan tacliinta Soomaaliya ay nambarka koowaad siiyaan Puntland sida loo fidiyey tayada tacliinta sida loo maamulay iyo sida aanan eexda lahayn ee inta badan ee ardada Soomaaliyeed loogu xaqsooro xilliyada ama imtixaanada ay jiraan ama ay jiraan scholarship-yadu Puntland macsuum maaha qaladaad uu dhici karaa muddo dheer laakiin waxaa sharaf ii ah inaan anigoo naftirkayga ka mid ahaan jiray dadka tacliinta ka shaqeeyey qiimaynteedana dad badan uga fiican waxaan qirayaa tacliinta Puntland inay meel wanaagsan oo lagu faani karo ay haysato ayna ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ama makaasibta ugu waaweyn ee Puntland 30 sano gaartay oo u baahan inay ku faracdeegto arrinta ku saabsan shahaado sideedaba waxaan fiicnaan lahayd inkastoo aan ka xumaa inaan halkoo kale ku sharxo
waa aqoonsasho ardaygaasi inuu fasalkaas imtixaan u fadhiistay muddadaasna uu soo dhiganayay macno kale oo ay leedahay ma leh waxaan la leeyahay shahaadada qaranka iyo wax ka jiraa ma jiraan wax qaran uu bixiyo uu leeyahay oo dadka oo dhan ka dhexeeya baasaboorkaa ka jira in dadku aad u fahmaan weeye shahaadadu waxay ku xidhan tahay hadba ciddaas gacanta ku haysa aniga oo madaxweyne ah ma bixin karo shahaadada iskuul ku yaalla magaalada baargaal saa waxba kama ogiya waxaa bixin kara oo ogaan kara oo sixi kara macallinka iyo maamulka iskuulkaas jooga waxaa la rabaa waxyaabaha yaab kale oo wasiirka waxbarashada federaalka aan leeyahay wuxuu leeyahay shahaada suur kama noqon karo hadday puntland maamulkeeda waxa ay tiraahda waxaas waa waxaas ay dowladda federaalka sheeganaysa leedahay ma in aqoonsanin haddaan annagu fiirin waxaa halkaa ka dhadhamaya nidaamka ah dalka in hal meel looga taliyo waxaa halkaas uu taxaddi ku yahay nidaamka